waxaa idinku seexda shacabka Soomaaliya meel uu joogaba waxaa lagu seexdaa gorgor munaasabadan lagu abaalmarinayay saraakiil xigeen alifley iyo dabley ka tirsan guutada 17aad ee Kumaandooska Gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xerada Damaayo ee taliska guutada 17aad munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiil kale ugu horeyn waxa goobta ka hadlay taliyaha guutada 17aad ee Kumaandooska Gorgor Gaashaanle Dayax Cabdi Cabdulle isagoona sheegay askarta maanta la siiyay abaalmarinta ay yihiin askartii kaalimaha hore ka galay tababar kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin hogaaminta ciidanka iyo shahaado sharaf oo ay ku muteysteen howlgalladii ay kula jireen maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab taliyaal xafladeena maanta waxay ku saabsan tahay abaalmarin iyo cutub ka tirsan saraakiil xigeenada taliyaasha kooxaha oo tababar meeshaan ugu dhamaaday xagga hogaaminta ah iyo saraakiil xigeen dabley ah howlkarro haliyeeyo gutay waajibaadkii qaranka Soomaaliyeed u igmaday iyo kii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga sugayay kuwaas oo dabcan kamid ahaa colol kala gedisan oo guutada ka tirsan kala jooga meelo kala gedisan halkaasna waajibaadkooda ka gudanayay in badan oo ayaga la mid ah oo waxa jira ku shahiiday ama ayagoo gudanaya waajibaadkii qaranka u igmaday oo u dhaarteen taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Maxamed Tahliil Biixi ayaa ku amaanay guutada Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed shaqada adag ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed iyo guuliha ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada waxa tusaale u tiin xoogga dalka Soomaaliyeed meel uu joogaba waxa idinku seexda shacabka Soomaaliya meel uu joogaba waxa lagu seexdaa gorgor meesha aad soo gashaan baa lagu farxaa waxa idinka naxa cadawga waxaan idinka rajaynayaa inaad dalka ka xoreysaan cadawga saraakiisheenii saraakiil xigeenkii askartii dableydii iyo guud ahaan shacabkii Soomaaliya naafaynaya ee al-shabaab inaad xoreysaan inaad dhiigiina wadanka u hurtaan waad u tababarateen waad u diyaar garowdeen dhiiga wadankiina u hura wax loo huri lahaa oo ka fiican diinta iyo dalka in dhiiga loo huraa ma jiro gabagabada munaasabadan ayaa waxa shahaado howlkarnimaha lagu guddoonsiiyay qaar ka mid ah askarta iyo saraakiisha guutada 17aad qofba geeska aan uga dirniyo yoosin gabintiisa guluf iyo gabraar iyo dagaal dhiigu go'leeyo yaanu wada galeynayaan ruuxna naga goosan geesinimo ha muujiyo ninkii baqa gariire geesaha rag baa ka jire gooniha ismoodi gaban iyo nandoorga iyo labiyo odagu giisgaaray qof kasto garaad leh la baray xeelada u gaara gabar kollay ku tahay ruux kasto tuuta loo galiyay guud ahaan dalka nabad ahba geedi loo yahay guudkiyo wadaniyo hadeer good ku xiro urka guudkiyo wadaniyo hadeer good ku xiro urka gam imayno jeeraan shaxdiyo leena garan goorta gafanuhu inta uu nool yihiyo goodka nacaska ah inuu go'o nandoorkeena iyo geeri huri mayno inta uu cadaawuhu gayiga goob ka mid ah joogo gardarana banaysanayo iyo gacalka baadiisa oo bulshada wax garadkeeda oo gowrac marinayo annaguna gabaad raadis iyo gaabis noqon mayno annaguna gabaad raadis iyo gaabis noqon mayno afartaas gundhiga gabayga iyo gab iyo weedheed gudoomana barsuugaan kalan soo gudbinayay geesiyaal dagaalama hayo guusha jirinaya ongeerida ka baqanaynin iyo god iyo iltoona oo raba inuu go'o ama u gaaro libintoosa seven garab la saariyo intuu ganayo kuuriyaanka ama gulufka loo wada dhan yahay galaya taariikhda ana ruux gudnimo qaata iyo gaabis noqon maayo afartaas gundhiga gabayga iyo gob iyo weedheed
guddoomana barsuugaan kale soo gudbinayay guutiyo haddaan ururo badan geliyo fayl maare gaadiidkii dagaalka dhan goobta ugu keeno oon fuula gaarida ku dhaho gabi ahaantoodba oon duulaan galbeeda jiriyo howlgal ugu baaqo oon webi ganaaniya ku dhaho jilib ku soo goobta godadkii shayaadiinta iyo goobta nacasiinta goonyaha ka daga oo mar raba yaanay idin gaadi geesaha kuwii carar u gala gaad ka dabaqaata gawaankii oo kuwii howdka jira raadsa gibilkooda dawacadu guryaha ee degtana guba dhammaantoodba guuyada sagaaro ku nool sida gariir haabta guuyada sagaaro ku nool sida gariir haabta gararweynta ficilkooda guran soo ganaanuda digsidir hadday doonayaan guba cataabsiiya shacabka gumaystuu ka taga siiya garab fiican gurmad qaran dabkiina noqdo guulla idin dhowr kaladiyo wanaageenna iyo libintanaan gaarno anna inaan ka gaaraara iyo gabayga dayn maayo anna inaan ka gaaraara iyo gabayga dayn maayo haddii aanan dhulkaygo dhuux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygo dhiig kuugu fooldhigin haddii aanan dhulkaygo gobonnimada soo dhicin Soomaali kama haddii aanan dhulkaygo dhuux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygo dhiig kuugu fooldhigin haddii aanan dhulkaygo gobonnimada soo dhicin Soomaali kama dhalan malkaaga maandhagan canihiisa maandhamin malkaaga maandhagan canihiisa maandhamin ciidana dhabumalledin malkaaga maandhagan canihiisa maandhamin malkaaga maandhagan canihiisa maandhamin ciidana dhabumalledin haddii aanan dhulkaygo gaaja kuugu dhumnaan haddii aanan dhibaatada dhexda suunka ku adkayn haddii aanan dhaxantiyo milicdaba u dhereeran Soomaali kama dhalan haddii aanan dhulkaygo gaaja kuugu dhumnaan haddii aanan dhibaatada dhexda suunka ku adkayn haddii aanan dhaxantiyo milicdaba u dhereeran Soomaali kama dhalan haddii aanan dhulkaygo
روح عداوك وكريم هدي أنا نركيغو ليكو بفولقين هدي أنا نركيغو قبلني ماذا سولدين سومالي كمان هدي أنا نركيغو روح عداوك وكريم هدي أنا نركيغو ليكو بفولقين